anigoo ah gudoomiyaha ciyaaraha degmada Tago Jaale Cabdiraxmaan Maxamed Yuusuf waxa maanta si rasmi ah u furnay tartanka bisha Ramadaan ay maalgelisay ururka Asaas Party maanta waa kulanka ugu horeeyay ee wareeg lagu furay waxa ciyaaray labada kooxood ee Sooreeda Marseille iyo Gaashaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Quality HD oo ah dhiirigeliyaha dhalinyarada kaliya maanta haystaan waxaan leeyahay saad dhalinyaradu garab taagantiin halkaas si wada abaalkiina maalin kale ni gudun doonaa waa in hayna abaalkiina waxaan qabanay saddex heer kala duwan degmada Tago Jaale sida waxa ka qayb galaya 8 kooxood bida waxa ka qayb galaya 9 kooxood eedana waxa ka qayb galaya 8 kooxood saddex heer maada iska rabaan tahay bishana kooban tahay waxa loo kala ciyaari doonaa kooxaha eeda marka laga yimaado kooxaha heerka labaad waxa ciyaari doona maalintii yoomkii laba ciyaarood ba ciyaari doonaan kooxaha sidii wax ciyaari doonaan laba ciyaarood oo saddex ciyaarood ba yoomkii ciyaari doonaan laba ciyaarood galiga dama yihiin ciyaarna subaxii tahay si loo soo gabagabeeyo inteena bisha Ramadaan dhamaan